dalkan waxaa dumi marka hore waxaa dumiyey adeegsiga saas macnaha ninka qaran dumiska ahi waa nin aan qaranka Soomaali aan wax ku lahayn haddii adigoo Soomaali ah ama anigoo Soomaali haddaan ku dhaho Cabdiraxmaan waxa tahay qaran dumis qaranka anaa iskale Cabdiraxmaan malaha saas darteed maadaama uu duminayo waa ka ilaashana ka ilaashiga soo ah haddaan rabo waa dila haddaan rabo waa xira haddaan rabana waa area waa waxa hadda socda waay Cabdiraxmaan jaran maxaa ku dhacay waa la soo afduubtay guri caadi ah lagu xirtay ma xabsi dawladnimo si uu uga baxsada maaqad asayqaan sida uu sheegay haddana soo joogo beled xawo dalkiisa joogo xabada dabada laga geliya Kenya lagu daray waa sida uu sheegay gudoomiyuhu hubuu ka soo qaadaa waana soo dagaalama marka Cabdiraxmaan janan Kenya Cabdiraxmaan Kenya ma asiga rabitaankiisa u galay mise waa la geli tusaale ahaan fiiri dadaa waxay ku leeyihiin Soomaaliya waxaa dumiyey jabhado Ethiopia soo hubaysay war Ethiopia inay jabhadaha soo hubayso oo nin Soomaaliya inuu inta baxo Ethiopia oo hubka soo qaado Soomaaliya ku soo duulo ma jecel oo u qabay Ethiopia miya maya wuxuu la noolaa waayay kii inta joogay tusaale ahaan madaxweyne Cabdullaahi Yusuf tusaale ahaan very clear waa ninka ugu dheer oo ugu horeeyay oo Ethiopia aaday hubka soo qaatay صح madaxweyne waxaa ku kalifay inqilaab uu sameeyay waa ka fashilmay okay madaxweyne Cabdullaahi Yusuf inuu inqilaab sameeyo ma xalaale ahayd ma xaraan ahayd xaraan ma ahayd okay madaxweyne Cabdullaahi Yusuf inuu inqilaab sameeyo xaraan ahayd laakiin General Siyaad inuu inqilaab sameeyo xalaal ma ahayd ma ahayd marka haddii uu General Siyaad uu inqilaab sameeyo oo u sacbisay oo xalaal tahay si lamida Colonel Cabdullaahi Yusufna waxa asigana u ah xalaal inuu inqilaab sameeyo ay with me how kala helin labadaba waa dhinteen laba nimo odayaal ah waa dhinteen oo kamid ciidanka Soomaaliya how kala helin just give him share you know marka waxay tahay marka inqilaabka inuu sameeyna waxa ku kalifay ninkan meesha fadhiya wadanka dastuurku ma xukumo wuxuu ku xukumayay aake asagana wuxuu rabaa inuu asna aka ku xukumo marka wax qaldan ma jiraan marka Ethiopia in la aado iyo sida maanta Kenya loo aadayo waxa ka shaqeynaya nin jooga villa Soomaaliya ayaa dadka kala eriya dadka hadii la kala eriyana Kenya ma aha iyo Ethiopia Israa'iil hatta waa aadaya saas darteed waxa la rabaa ninka jooga villa Soomaaliya dadka dalka inuu ku hayo lana joojiyo waxa tahay qaran dumis adeegsiga erayga qaran dumis waa qaran dumisnimo dalkan waxaan naga wada dhaxeeyaa dhamaanteen sinis aad ku dalkan waxaa dumiyey marka hore waxaa dumiyey adeegsiga saas macnaha ninka qaran dumiska ahi waa nin aan qaranka Soomaali aan wax ku lahayn haddii adigoo Soomaali ah ama anigoo Soomaali haddaan ku dhaho Cabdiraxmaan waxa tahay qaran dumis qaranka anaa iskale Cabdiraxmaan malaha saas darteed maadaama uu duminayo waa ka ilaashana ka ilaashiga soo ah haddaan rabo waa dila haddaan rabo waa xira haddaan rabana waa area waa waxa hadda socda waay Cabdiraxmaan jaran maxaa ku dhacay waa la soo afduubtay guri caadi ah lagu xirtay ma xabsi dawladnimo si uu uga baxsada maaqad asayqaan sida uu sheegay haddana soo joogo beled xawo dalkiisa joogo xabada dabada laga geliya Kenya lagu daray waa sida uu sheegay gudoomiyuhu hubuu ka soo qaadaa waana soo dagaalama marka Cabdiraxmaan janan Kenya Cabdiraxmaan Kenya ma asiga rabitaankiisa u galay mise waa la geli tusaale ahaan fiiri dadaa waxay ku leeyihiin Soomaaliya waxaa dumiyey jabhado Ethiopia soo hubaysay war Ethiopia inay jabhadaha soo hubayso oo nin Soomaaliya inuu inta baxo Ethiopia oo hubka soo qaado Soomaaliya ku soo duulo ma jecel oo u qabay Ethiopia miya maya wuxuu la noolaa waayay kii inta joogay tusaale ahaan madaxweyne Cabdullaahi Yusuf tusaale ahaan very clear waa ninka ugu dheer oo ugu horeeyay oo Ethiopia aaday hubka soo qaatay صح madaxweyne waxa ku kalifay inqilaab uu sameeyay waa ka fashilmay okay madaxweyne Cabdullaahi Yusuf inuu inqilaab sameeyo ma xalaale ahayd ma xaraan ahayd xaraan ma ahayd okay madaxweyne Cabdullaahi Yusuf inuu inqilaab sameeyo xaraan ahayd laakiin General Siyaad inuu inqilaab sameeyo xalaal ma ahayd ma ahayd
marka haddii uu generaal siyaad uu inqilaab sameeyo ood u sacbisay oy xalaal tahay si lamida cornel cabdullaahi yuusufna waxaa asigana u ah xalaal inuu inqilaab sameeyo ay with me ha u kala helin labadaba waa dhinteen laba nin oo odayaal ah waa dhinteen oo kamid ciidanka Soomaaliya ha u kala helin just give him share you know marka waxay tahay marka inqilaabka inuu sameeyna waxa ku kalifay ninkan meesha fadhiya wadanka dastuurku ma xukumo wuxuu ku xukumayay aake asagana wuxuu rabaa inuu aaka ku xukumo marka wax qaldan ma jiraan marka Ethiopia in la aado iyo sida maanta Kenya loo aadayo waxa ka shaqeynaya nin jooga villa Soomaaliya ayaa dadka kala eriya dadka hadii la kala eriyana Kenya ma aha Ethiopia Israa'iil hatta waa aadaya saas darteed waxa la rabaa ninka jooga villa Soomaaliya dadka dalka inuu ku hayo lana joojiyo waxa tahay qaran dumis adeegsiga erayga qaran dumis waa qaran dumisnimo dalka waxaan naga wada dhaxeeya dhamaanteen sinis aad ku dalkan waxa dubi marka hore waxa dumiyay adeegsiga saas macnaha ninka qaran dumiska ah waa nin aan qaranka Soomaali ah wax ku lahayn hadii adigoo Soomaali ah ama anigoo Soomaali haddaan ku dhaho Cabdiraxmaan waxa tahay qaran dumis qaranka ana iskale Cabdiraxmaan malaha saas darteed maadaama uu duminayo waa ka ilaashana ka ilaashiga soo ah haddaan raba waa dila haddaan raba waa xira haddaan rabana waa area waa waxa hadda socdo waa Cabdiraxmaan jaran maxaa ku dhacay waa la soo afduubtay guri caadiya lagu xirtay ma xabsi dawladnimo si uu uga baxsada maaqad asayqaan sida uu sheegay haddana soo joogo beled xawo dalkiisa joogo xabada dabada laga geliya Kenya lagu daray waa sida uu sheegay gudoomiyuhu hubo ka soo qaadaa waana soo dagaalamo marka Cabdiraxmaan janan Kenya Cabdiraxmaan Kenya ma asiga rabitaankiisa u galay mise waa la geli tusaale ahaan fiiri dadaa waxay ku leeyihiin Soomaaliya waxaa dumiyay jabhado Ethiopia soo hubaysay war Ethiopia inay jabhadaha soo hubayso oo nin Soomaaliya inuu inta baxo Ethiopia oo hubka soo qaado Soomaaliya ku soo duulo ma jecel oo u qaba Ethiopia miya maya wuxuu la noolaa waayay kii inta joogay tusaale ahaan madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf tusaale ahaan very clear waa ninka ugu dheer oo ugu horeeyay oo Ethiopia aaday hubka soo qaatay صح madaxweyne maxaa ku kalifay inqilaab uu sameeyay waa ka fashilmay okay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf inuu inqilaab sameeyo ma xalaal ahayd ma xaraan ahayd xaraan ma ahayd okay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf inuu inqilaab sameeyo xaraan ahayd laakiin generaal siyaad inuu inqilaab sameeyo xalaal ma ahayd ma ahayd marka haddii uu generaal siyaad uu inqilaab sameeyo ood u sacbisay oy xalaal tahay si lamida cornel cabdullaahi yuusufna waxa asigana u ah xalaal inuu inqilaab sameeyo ay with me ha u kala helin labadaba waa dhinteen laba nin oo odayaal ah waa dhinteen oo kamid ciidanka Soomaaliya ha u kala helin just give him share you know marka waxay tahay marka inqilaabka inuu sameeyna waxa ku kalifay ninkan meesha fadhiya wadanka dastuurku ma xukumo wuxuu ku xukumayay aake asagana wuxuu rabaa inuu aaka ku xukumo marka wax qaldan ma jiraan marka Ethiopia in la aado iyo sida maanta Kenya loo aadayo waxa ka shaqeynaya nin jooga villa Soomaaliya ayaa dadka kala eriya dadka hadii la kala eriyana Kenya ma aha Ethiopia Israa'iil hatta waa aadaya saas darteed waxa la rabaa ninka jooga villa Soomaaliya dadka dalka inuu ku hayo lana joojiyo waxa tahay qaran dumis adeegsiga erayga qaran dumis waa qaran dumisnimo dalka waxaan naga wada dhaxeeya dhamaanteen sinis aad ku dalkan waxa dumiyay marka hore waxa dumiyay adeegsiga saas macnaha ninka qaran dumiska ah waa nin aan qaranka Soomaali ah wax ku lahayn hadii adigoo Soomaali ah ama anigoo Soomaali haddaan ku dhaho Cabdiraxmaan waxa tahay qaran dumis qaranka ana iskale Cabdiraxmaan malaha saas darteed maadaama uu duminayo waa ka ilaashana ka ilaashiga soo ah haddaan raba waa dila haddaan raba waa xira haddaan rabana waa area waa waxa hadda socdo waa Cabdiraxmaan jaran maxaa ku dhacay waa la soo afduubtay guri caadiya lagu xirtay ma xabsi dawladnimo si uu uga baxsada maaqad asayqaan sida uu sheegay haddana soo joogo beled xawo dalkiisa joogo xabada dabada laga geliya Kenya lagu daray waa sida uu sheegay gudoomiyuhu hubo ka soo qaadaa waana soo dagaalamo marka Cabdiraxmaan janan
kenya cabdirashiid janan kenya ma asigaa rabitaankiisa u galay mise waa la geli tusaale ahaan fiiri dadaa waxay ku leeyihiin soomaaliya waxaa dumiyey jabhado etoobiya soo hubaysay war etoobiya inay jabhadaha soo hubayso oo nin soomaaliya inuu inta baxo etoobiya oo hubka soo qaado soomaaliya kusoo duulo ma jeceel oo u qabay etoobiya miya maya wuxuu la noolaa waaye kii inta joogay tusaale ahaan madaxweyne cabdullahi yusuf tusaale ahaan very clear waa ninka ugu dheer oo ugu horreeyey oo etoobiya aaday oo hubka soo qaata sax madaxweyne waxaa ku kalifay inqilaabow sameeyey waa ka fashilmay okay madaxweyne cabdullahi yusuf inuu inqilaab sameeyo ma xalaalay ahayd mase xaaraanay ahayd xaaraan may ahayd okay madaxweyne cabdullahi yusuf inuu inqilaab sameeyo xaaraanay ahayd laakiin generaal siyaad inuu inqilaab sameeyo xalaal may ahayd may ahayn marka haddii uu generaal siyaad uu inqilaab sameeyo ood u sacbisay oy xalaal tahay si lamida cornel cabdullahi yusufna waxaa asigana u ah xalaal inuu inqilaab sameeyo ay with me ha u kala helin labadaba waa dhinteen laba nimoo odayaal ah waa dhinteen oo kamid ciidanka Soomaaliya ha u kala helin just give him share you know marka waxay tahay marka inqilaabka inuu sameeyna waxa ku kalifay ninkan meesha fadhiya wadanka dastuurku ma xukumo wuxuu ku xukumayay aake asagana wuxuu rabaa inuu asna ku xukumo marka wax qaldan ma jiraan marka Ethiopia in la aado iyo sida maanta Kenya loo aadayo waxa ka shaqeynaya nin jooga villa Soomaaliya ayaa dadka kala eriya dadka hadii la kala eriyana Kenya ma aha iyo Ethiopia Israa'iil xataa waa aadaya saas darteed waxaa la rabaa ninka jooga villa Soomaaliya dadka dalka inuu ku hayo lana joojiyo waxaa tahay qaran dumis adeegsiga erayga qaran dumis waa qaran dumisnimo dalkan waa naga wada dhaxeeya dhamaanteen sinis aad ku dalkan waxaa dumiyey marka hore waxaa dumiyey adeegsiga saas macnaha ninka qaran dumiska ah waa nin aan qaranka Soomaali aan wax ku lahayn haddii adigoo Soomaali ah ama anigoo Soomaali haddaan ku dhaho Cabdiraxmaan waxa tahay qaran dumis qaranka anaa iskale Cabdiraxmaan malaha saas darteed maadaama uu duminayo waa ka ilaashana ka ilaashiga soo ah haddaan rabo waa dila haddaan rabo waa xira haddaan rabana waa area waa waxa hadda socdo waa Cabdiraxmaan jaran maxaa ku dhacay waa la soo afduubtay guri caadiya lagu xirtay ma xabsi dawladnimo si uu uga baxsada maaqad asayqaan sida uu sheegay haddana soo joogo bilad xawo dalkiisa joogo xabada dabada laga geliya Kenya lagu daray waa sida uu sheegay gudoomiyuhu hubu ka soo qaadaa waana soo dagaalamo marka Cabdiraxmaan janan Kenya cabdirashiid janan Kenya ma asigaa rabitaankiisa u galay mise waa la geli tusaale ahaan fiiri dadaa waxay ku leeyihiin Soomaaliya waxaa dumiyey jabhado Ethiopia soo hubaysay war Ethiopia inay jabhadaha soo hubayso oo nin Soomaaliya inuu inta baxo Ethiopia oo hubka soo qaado Soomaaliya kusoo duulo ma jeceel oo u qabay Ethiopia miya maya wuxuu la noolaa waaye kii inta joogay tusaale ahaan madaxweyne cabdullahi yusuf tusaale ahaan very clear waa ninka ugu dheer oo ugu horreeyey oo Ethiopia aaday oo hubka soo qaata sax madaxweyne waxaa ku kalifay inqilaabow sameeyey waa ka fashilmay okay madaxweyne cabdullahi yusuf inuu inqilaab sameeyo ma xalaalay ahayd mase xaaraanay ahayd xaaraan may ahayd okay madaxweyne cabdullahi yusuf inuu inqilaab sameeyo xaaraanay ahayd laakiin generaal siyaad inuu inqilaab sameeyo xalaal may ahayd may ahayn marka haddii uu generaal siyaad uu inqilaab sameeyo ood u sacbisay oy xalaal tahay si lamida cornel cabdullahi yusufna waxaa asigana u ah xalaal inuu inqilaab sameeyo ay with me ha u kala helin labadaba waa dhinteen laba nimoo odayaal ah waa dhinteen oo kamid ciidanka Soomaaliya ha u kala helin just give him share you know marka waxay tahay marka inqilaabka inuu sameeyna waxa ku kalifay ninkan meesha fadhiya wadanka dastuurku ma xukumo wuxuu ku xukumayay aake asagana wuxuu rabaa inuu asna ku xukumo marka wax qaldan ma jiraan marka Ethiopia in la aado iyo sida maanta Kenya loo aadayo waxa ka shaqeynaya nin jooga villa Soomaaliya ayaa dadka kala eriya dadka hadii la kala eriyana Kenya ma aha iyo Ethiopia Israa'iil xataa waa aadaya saas darteed waxaa la rabaa ninka jooga villa Soomaaliya dadka dalka inuu ku hayo lana joojiyo waxaa tahay qaran dumis
adeegsiga ereyga qarandumis waa qarandumisnimo dalkan waa naga wada dhexeeya dhammaanteen sinis aad ku dalkan waxaa dumiyey marka hore waxaa dumiyey adeegsiga saas macnaha ninka qarandumiskaahi waa nin aan qaranka soomaaliya aan wax ku lahayn haddii adigoo soomaali ah ama anigoo soomaaliya haddaan ku dhaho cabdiraxmaan waxaa tahay qarandumis qaranka anaa iskale cabdiraxmaan ma laha saas darteed maadaama uu duminayo waa ka ilaashana ka ilaashigaasoo ah haddaan raba waa dilaa haddaan raba waa xiraa haddaan rabana waa erya waa waxa hadda socda waayo cabdiraxmaan jaran maxaa ku dhacay waa lasoo afduubtay guri caadiyaa lagu xirtay ma xabsi dowla limid si uu uga baxsada maaqaad asaa yaqaana sida uu sheegayay haddana soo jooga beled xaawo dalkiisu jooga xabadaa dabada laga geliya kenyaan lagu daray waa sida uu sheegay guddoomiyuhu hubow ka soo qaadaa waana soo dagaalama marka cabdiraxmaan janan kenya cabdirashi janan kenya ma asigaa rabitaankiisa u galay mise waa la geli tusaale ahaan feri dadaa waxay ku leeyihiin soomaaliya waxaa dumiyey jabhado etoobiya soo hubaysay war etoobiya inay jabhadaha soo hubayso oo nin soomaaliya inuu inta baxo etoobiya oo hubka soo qaado soomaaliya kusoo duulo ma jeceel oo u qabay etoobiya miya maya wuxuu la noolaa waaye kii inta joogay tusaale ahaan madaxweyne cabdullahi yusuf tusaale ahaan feri kileer waa ninka ugu dheer oo ugu horreeyey oo etoobiya aaday oo hubka soo qaata sax madaxweyne waxaa ku kalifay inqilaabow sameeyey waa ka fashilmay okay madaxweyne cabdullahi yusuf inuu inqilaab sameeyo ma xalaale ahayd mase xaaraanay ahayd xaaraan may ahayd okay madaxweyne cabdullahi yusuf inuu inqilaab sameeyo xaaraanay ahayd laakiin generaal siyaad inuu inqilaab sameeyo xalaal may ahayd ma ahayn marka haddii uu generaal siyaad uu inqilaab sameeyo ood u sacbisay oy xalaal tahay si lamida cornel cabdullahi yusufna waxaa asigana u ah xalaal inuu inqilaab sameeyo ay with me ha u kala helin labadaba waa dhinteen laba nimoo odayaal ah waa dhinteen oo kamid ciidanka soomaaliya ha u kala helin just give him share you know marka waxay tahay marka inqilaabka inuu sameeyna waxa ku kalifay ninkan meesha fadhiya wadanka dastuurku ma xukumo wuxuu ku xukumayay aake asagana wuxuu rabaa inuu asla aaka ku xukumo marka wax qaldan ma jiraan marka Ethiopia in la aado iyo sida maanta Kenya loo aadayo waxaa ka shaqeynaya nin jooga villa Soomaaliya ayaa dadka kala eriya dadka hadii la kala eriyana Kenya ma aha iyo Ethiopia Israa'iil xataa waa aadaya saas darteed waxaa la rabaa ninka jooga villa Soomaaliya dadka dalka inuu ku hayo lana joojiyo waxaa tahay qaran dumis adeegsiga erayga qaran dumis waa qaran dumisnimo dalkan waa naga wada dhexeeya dhammaanteen sinis aad ku dalkan waxaa dumiyey marka hore waxaa dumiyey adeegsiga saas macnaha ninka qaran dumiskaahi waa nin aan qaranka Soomaaliya aan wax ku lahayn haddii adigoo Soomaali ah ama anigoo Soomaaliya haddaan ku dhaho Cabdiraxmaan waxaa tahay qaran dumis qaranka anaa iskale Cabdiraxmaan ma laha saas darteed maadaama uu duminayo waa ka ilaashana ka ilaashigaasoo ah haddaan raba waa dilaa haddaan raba waa xiraa haddaan rabana waa erya waa waxa hadda socda waayo Cabdiraxmaan jaran maxaa ku dhacay waa lasoo afduubtay guri caadiyaa lagu xirtay ma xabsi dowla limid si uu uga baxsada maaqaad asaa yaqaana sida uu sheegayay haddana soo jooga beled xaawo dalkiisu jooga xabadaa dabada laga geliya kenyaan lagu daray waa sida uu sheegay guddoomiyuhu hubow ka soo qaadaa waana soo dagaalama marka cabdiraxmaan janan kenya cabdirashi janan kenya ma asigaa rabitaankiisa u galay mise waa la geli tusaale ahaan feri dadaa waxay ku leeyihiin Soomaaliya waxaa dumiyey jabhado Ethiopia soo hubaysay war Ethiopia inay jabhadaha soo hubayso oo nin Soomaaliya inuu inta baxo Ethiopia oo hubka soo qaado Soomaaliya kusoo duulo ma jeceel oo u qabay Ethiopia miya maya wuxuu la noolaa waaye kii inta joogay tusaale ahaan madaxweyne Cabdullahi Yusuf tusaale ahaan feri kileer waa ninka ugu dheer oo ugu horreeyey oo Ethiopia aaday oo hubka soo qaata sax madaxweyne waxaa ku kalifay inqilaabow sameeyey waa ka fashilmay okay madaxweyne Cabdullahi Yusuf inuu inqilaab sameeyo ma xalaale ahayd mase xaaraan ahayd xaaraan may ahayd okay
madaxweyne cabdullaahi yuusuf inuu inqilaab sameeyo xaaraanay ahayd laakiin generaal siyaad inuu inqilaab sameeyo xalaal may ahayd ma ahayn marka haddii uu generaal siyaad uu inqilaab sameeyo ood u sacbisay oy xalaal tahay si lamida cornel cabdullaahi yuusufna waxaa asigana u ah xalaal inuu inqilaab sameeyo ay with me ha u kala helin labadaba waa dhinteen laba nin oo odayaal ah waa dhinteen oo kamid ciidanka Soomaaliya ha u kala helin just give him share you know marka waxay tahay marka inqilaabka inuu sameeyna waxa ku kalifay ninkan meesha fadhiya wadanka dastuurku ma xukumo wuxuu ku xukumayay aake asagana wuxuu rabaa inuu asla ku xukumo marka wax qaldan ma jiraan marka Ethiopia in la aado iyo sida maanta Kenya loo aadayo waxa ka shaqeynaya nin jooga villa Soomaaliya ayaa dadka kala eriya dadka hadii la kala eriyana Kenya ma aha Ethiopia Israa'iil hatta waa aadaya saas darteed waxa la rabaa ninka jooga villa Soomaaliya dadka dalka inuu ku hayo lana joojiyo waxa tahay qaran dumis adeegsiga erayga qaran dumis waa qaran dumisnimo dalkan waxaan naga wada dhaxeeya dhamaanteen sinis aad ku dalkan waxa dubi marka hore waxa dumiyay adeegsiga saas macnaha ninka qaran dumiska ah waa nin aan qaranka Soomaaliya aan wax ku lahayn haddii adigoo Soomaali ah ama anigoo Soomaali haddaan ku dhaho Cabdiraxmaan waxa tahay qaran dumis qaranka anaa iskale Cabdiraxmaan malaha saas darteed maadaama uu duminayo waa ka ilaashana ka ilaashiga soo ah haddaan raba waa dila haddaan raba waa xira haddaan rabana waa area waa waxa hadda socdo waa Cabdiraxmaan jaran maxaa ku dhacay waa la soo afduubtay guri caadi ah lagu xirtay ma xabsi dawladnimo si uu uga baxsada maaqad asayqaan sida uu sheegay haddana soo joogo bilad xaawad dalkiisa joogo xabada dabada laga geliya Kenya lagu daray waa sida uu sheegay gudoomiyuhu hubuu ka soo qaadaa waana soo dagaalamo marka Cabdiraxmaan janan Kenya Cabdiraxmaan Kenya ma asiga rabitaankiisa u galay mise waa la geli tusaale ahaan fiiri dadaa waxay ku leeyihiin Soomaaliya waxaa dumiyay jabhado Ethiopia soo hubaysay war Ethiopia inay jabhadaha soo hubayso oo nin Soomaaliya inuu inta baxo Ethiopia oo hubka soo qaado Soomaaliya ku soo duulo ma jecel oo u qabay Ethiopia miya maya wuxuu la noolaa waayay kii inta joogay tusaale ahaan madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf tusaale ahaan very clear waa ninka ugu dheer oo ugu horeeyay oo Ethiopia aad hubka soo qaatay صح madaxweyne maxaa ku kalifay inqilaab uu sameeyay waa ka fashilmay okay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf inuu inqilaab sameeyo ma xalaale ahayd ma xaraan ahayd xaraan ma ahayd okay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf inuu inqilaab sameeyo xaraan ahayd laakiin generaal siyaad inuu inqilaab sameeyo xalaal ma ahayd ma ahayn marka haddii uu generaal siyaad uu inqilaab sameeyo ood u sacbisay oy xalaal tahay si lamida cornel cabdullaahi yuusufna waxaa asigana u ah xalaal inuu inqilaab sameeyo ay with me ha u kala helin labadaba waa dhinteen laba nin oo odayaal ah waa dhinteen oo kamid ciidanka Soomaaliya ha u kala helin just give him share you know marka waxay tahay marka inqilaabka inuu sameeyna waxa ku kalifay ninkan meesha fadhiya wadanka dastuurku ma xukumo wuxuu ku xukumayay aake asagana wuxuu rabaa inuu asla ku xukumo marka wax qaldan ma jiraan marka Ethiopia in la aado iyo sida maanta Kenya loo aadayo waxa ka shaqeynaya nin jooga villa Soomaaliya ayaa dadka kala eriya dadka hadii la kala eriyana Kenya ma aha Ethiopia Israa'iil hatta waa aadaya saas darteed waxa la rabaa ninka jooga villa Soomaaliya dadka dalka inuu ku hayo lana joojiyo waxa tahay qaran dumis adeegsiga erayga qaran dumis waa qaran dumisnimo dalkan waxaan naga wada dhaxeeya dhamaanteen sinis aad ku dalkan waxa dumiyay marka hore waxa dumiyay adeegsiga saas macnaha ninka qaran dumiska ah waa nin aan qaranka Soomaaliya aan wax ku lahayn haddii adigoo Soomaali ah ama anigoo Soomaali haddaan ku dhaho Cabdiraxmaan waxa tahay qaran dumis qaranka anaa iskale Cabdiraxmaan malaha saas darteed maadaama uu duminayo waa ka ilaashana ka ilaashiga soo ah haddaan raba waa dila haddaan raba waa xira haddaan rabana waa area waa waxa hadda socdo waa Cabdiraxmaan jaran maxaa ku dhacay waa la soo afduubtay guri caadi ah lagu xirtay ma xabsi dawladnimo si uu uga baxsada maaqad asayqaan sida uu sheegay haddana soo joogo bilad xaawad dalkiisa joogo xabada dabada laga geliya
kenya lagu daray waa sida uu sheegay gudoomiyuhu hubow ka soo qaadaa waana soo dagaalama marka cabdiraxmaan janan kenya cabdirashiid janan kenya ma asigaa rabitaankiisa u galay mise waa la geli tusaale ahaan feeri dadaa waxay ku leeyihiin soomaaliya waxaa dumiyey jabhado etoobiya soo hubaysay war etoobiya inay jabhadaha soo hubayso oo nin soomaaliya inuu inta baxo etoobiya oo hubka soo qaado soomaaliya kusoo duulo ma jeceel oo u qabay etoobiya miya maya wuxuu la noolaa waaye kii inta joogay tusaale ahaan madaxweyne cabdullahi yusuf tusaale ahaan very clear waa ninka ugu dheer oo ugu horreeyey oo etoobiya aaday oo hubka soo qaata sax madaxweyne waxaa ku kalifay inqilaabow sameeyey waa ka fashilmay okay madaxweyne cabdullahi yusuf inuu inqilaab sameeyo ma xalaalay ahayd mase xaaraanay ahayd xaaraan may ahayd okay madaxweyne cabdullahi yusuf inuu inqilaab sameeyo xaaraanay ahayd laakiin generaal siyaad inuu inqilaab sameeyo xalaal may ahayd may ahayn marka haddii uu generaal siyaad uu inqilaab sameeyo ood u sacbisay oy xalaal tahay si lamida cornel cabdullahi yusufna waxaa asigana u ah xalaal inuu inqilaab sameeyo ay with me ha u kala helin labadaba waa dhinteen laba nin oo odayaal ah waa dhinteen oo kamid ciidanka Soomaaliya ha u kala helin just give him share you know marka waxay tahay marka inqilaabka inuu sameeyna waxa ku kalifay ninkan meesha fadhiya wadanka dastuurku ma xukumo wuxuu ku xukumayay aake asagana wuxuu rabaa inuu asna ku xukumo marka wax qaldan ma jiraan marka Ethiopia in la aado iyo sida maanta Kenya loo aadayo waxa ka shaqeynaya nin jooga villa Soomaaliya ayaa dadka kala eriya dadka hadii la kala eriyana Kenya ma aha Ethiopia Israa'iil hatta waa aadaya saas darteed waxa la rabaa ninka jooga villa Soomaaliya dadka dalka inuu ku hayo lana joojiyo waxa tahay qaran dumis adeegsiga erayga qaran dumis waa qaran dumisnimo dalka waxa naga wada dhaxeeya dhamaanteen sinis aad ku dalkan waxa dumiyay marka hore waxa dumiyay adeegsiga saas macnaha ninka qaran dumiska ah waa nin aan qaranka Soomaaliya aan wax ku lahayn hadii adigoo Soomaali ah ama anigoo Soomaali haddaan ku dhaho Cabdiraxmaan waxa tahay qaran dumis qaranka ana iskale Cabdiraxmaan malaha saas darteed maadaama uu duminayo waa ka ilaashana ka ilaashiga soo ah haddaan raba waa dila haddaan raba waa xira haddaan raba waa area waa waxa hadda socdo waa Cabdiraxmaan jaran maxaa ku dhacay waa la soo afduubtay guri caadi ah lagu xirtay ma xabsi dawladnimo si uu uga baxsada ma qad asayqaan sida uu sheegay haddana soo joogo beled xaawo dalkiisu joogo xabada dabada laga geliya Kenya lagu daray waa sida uu sheegay gudoomiyuhu hubow ka soo qaadaa waana soo dagaalama marka Cabdiraxmaan janan Kenya cabdirashiid janan Kenya ma asigaa rabitaankiisa u galay mise waa la geli tusaale ahaan feeri dadaa waxay ku leeyihiin Soomaaliya waxaa dumiyey jabhado Ethiopia soo hubaysay war Ethiopia inay jabhadaha soo hubayso oo nin Soomaaliya inuu inta baxo Ethiopia oo hubka soo qaado Soomaaliya kusoo duulo ma jeceel oo u qabay Ethiopia miya maya wuxuu la noolaa waaye kii inta joogay tusaale ahaan madaxweyne cabdullahi yusuf tusaale ahaan very clear waa ninka ugu dheer oo ugu horreeyey oo Ethiopia aaday oo hubka soo qaata sax madaxweyne waxaa ku kalifay inqilaabow sameeyey waa ka fashilmay okay madaxweyne cabdullahi yusuf inuu inqilaab sameeyo ma xalaalay ahayd mase xaaraanay ahayd xaaraan may ahayd okay madaxweyne cabdullahi yusuf inuu inqilaab sameeyo xaaraanay ahayd laakiin generaal siyaad inuu inqilaab sameeyo xalaal may ahayd may ahayn marka haddii uu generaal siyaad uu inqilaab sameeyo ood u sacbisay oy xalaal tahay si lamida cornel cabdullahi yusufna waxa asigana u ah xalaal inuu inqilaab sameeyo ay with me ha u kala helin labadaba waa dhinteen laba nin oo odayaal ah waa dhinteen oo kamid ciidanka Soomaaliya ha u kala helin just give him share you know marka waxay tahay marka inqilaabka inuu sameeyna waxa ku kalifay ninkan meesha fadhiya wadanka dastuurku ma xukumo wuxuu ku xukumayay aake asagana wuxuu rabaa inuu asna ku xukumo marka wax qaldan ma jiraan marka Ethiopia in la aado iyo sida maanta Kenya loo aadayo waxa ka shaqeynaya nin jooga villa Soomaaliya ayaa dadka kala eriya dadka hadii la kala eriyana
kenya ma aha iyo etoobiya israa'iil xataa waa aadaya Mahadsan saas darteed waxaa la rabaa ninka jooga villa soomaaliya dadka dalka inuu ku hayo lana joojiyo waxaa tahay qaran dumis adeegsiga ereyga qaran dumis waa qaran dumisnimo dalkan wahaan naga wada dhexeeya dhammaanteen sinis aad ku dalkan waxaa dumiyey marka hore waxaa dumiyey adeegsiga saas macnaha ninka qaran dumiskaahi waa nin aan qaranka soomaaliya aan wax ku lahayn haddii adigoo soomaali ah ama anigoo soomaaliya haddaan ku dhaho cabdiraxmaan waxaa tahay qaran dumis qaranka anaa iskale cabdiraxmaan ma laha saas darteed maadaama uu duminayo waa ka ilaashana ka ilaashigaa soo ah haddaan raba waa dilaa haddaan raba waa xiraa haddaan rabana waa erya waa waxa hadda socda waayo cabdiraxmaan jaran maxaa ku dhacay waa lasoo afduubtay guri caadiyaa lagu xirtay ma xabsi dowladnimid si uu uga baxsadaa maaqaad asaa yaqaana sida uu sheegayay haddana asoo jooga beled xaawo dalkiisa jooga xabadaa dabada laga geliya kenya lagu daray waa sida uu sheegay guddoomiyuhu hubuu ka soo qaadaa waana soo dagaalama marka cabdiraxmaan janan kenya cabdis janan kenya ma asigaa rabitaankiisa u galay mise waa la geli tusaale ahaan feri dadaa waxay ku leeyihiin soomaaliya waxaa dumiyey jabhado etoobiya soo hubaysay war etoobiya inay jabhadaha soo hubayso oo nin soomaaliya inuu inta baxo etoobiya oo hubka soo qaado soomaaliya kusoo duulo ma jeceel oo u qabay etoobiya miya maya wuxuu la noolaa waaye kii inta joogay tusaale ahaan madaxweyne cabdullahi yusuf tusaale ahaan feri kilaad waa ninka ugu dheer oo ugu horreeyey oo etoobiya aaday oo hubka soo qaata sax madaxweyne waxaa ku kalifay inqilaabow sameeyey waa ka fashilmay okay madaxweyne cabdullahi yusuf inuu inqilaab sameeyo ma xalaalay ahayd mase xaaraanay ahayd xaaraan may ahayd okay madaxweyne cabdullahi yusuf inuu inqilaab sameeyo xaaraanay ahayd laakiin generaal siyaad inuu inqilaab sameeyo xalaal may ahayd may ahayn marka haddii uu generaal siyaad uu inqilaab sameeyo ood u sacbisay oy xalaal tahay si lamida cornel cabdullahi yusufna waxaa asigana u ah xalaal inuu inqilaab sameeyo ay with me ha u kala helin labadaba waa dhinteen laba nin oo odayaal ah waa dhinteen oo kamid ciidanka Soomaaliya ha u kala helin just give him share you know marka waxay tahay marka inqilaabka inuu sameeyna waxa ku kalifay ninkan meesha fadhiya wadanka dastuurku ma xukumo wuxuu ku xukumayay aake asagana wuxuu rabaa inuu asna ku xukumo marka wax qaldan ma jiraan marka Ethiopia in la aado iyo sida maanta Kenya loo aadayo waxa ka shaqeynaya nin jooga villa Soomaaliya ayaa dadka kala eriya dadka hadii la kala eriyana Kenya ma aha iyo Ethiopia Israa'iil xataa waa aadaya saas darteed waxaa la rabaa ninka jooga villa Soomaaliya dadka dalka inuu ku hayo lana joojiyo waxaa tahay qaran dumis adeegsiga ereyga qaran dumis waa qaran dumisnimo dalkan wahaan naga wada dhexeeya dhammaanteen sinis aad ku